garoomada bacaadka waa kuwa ugu badan ee lagu ciyaaro kubadda ayaa hadda meesha ka sii baxaya waxaana aad u soo badanaya garoomada ka samaysan cawska macmalka ah garoonkan oo lagu ciyaari jiray waqtiyada hore ayaa meesha ka sii baxaya taasi oo ay sabab u noqotay markii dalka gudihiisa ay ku soo bateen garoomada ka samaysan cawska macmalka ah سعيد يوسف عبد الله oo kamid ah dadka inta ugu badan ku ciyaara garoonkan caadiga ah waxa uu ii sheegay sababta uu ugu ciyaaro garoonkan iyo farqiga u dhaxeeya garoonka ka samaysan cawska macmalka ah ana magacaygu yahay Injineer Saciid Saadilaahi hadda waxaan ka suganahay fagaaraha ama barkulanka Exportka Maxamed Axmed Cali Stadium waxaan maanta compare ama isbarbar ku sameyn doonaa garoonka dhulka iyo garoonka dooga waa laba garoon oo soo jireena laakiin taariikh way kala leh garoonka dhulku tan iyo ilaa maalintii Soomaaliland si tubar ugu ciyaarey inkastoo sanadadu inagu soo biireen garoon dooga haddii aad fadhigo saddex shay buu kaga wanaagsan yahay garoonka dhulku dooga saddex qodob ka wanaagsan wax weeyaan xaka lacagta oo dhalinyarada reer Soomaaliland ma awoodi karto 12,000 oo garoonka waxa iska qaaday 12 ama 15,000 maalinlihiina 10,000 waxa kala qaalisayn khashaafada kale inaan ciyaaryahankii dhalinyarada ahaa Soomaaliland ku nool ma awoodi karo 10,000 oo shaqo 12,000 ku ciyaaro hadduu soo awoodana ma ciyaar karo kubadda dhameystiran hal saac buu ciyaaraya 5 shaqo mir waxaan gaadhay buu ciyaaraya taa uu ka wanaagsan wuxuu ka wanaagsan yahay garoonka dhulku marka si kasta uu ciyaarto 3 saac garoonka dhulka ciyaarto wuxuu ka wanaagsan yahay hal saac oo ciyaarto garoon dooga way garoon dooga wad ku daalaysaa uruqo dhamaas ka galaya haddii garoon dooga mar labaad iyo mar saddexaad ba dhaleeceeyo garoon dooga wuxuu kaga fiicay garoon dooga wuxuu kaga xuyahay dhulka xaga kharashka halka daalka iyo halka gubadda iyo waqtiga garoonka dhulka gubadda ma soo qaadanaysa marka alla marka ka dasho ma ka bixi karta laakiin garoonkan kale lacag baa laga qaadaya waqtiga waa lagu xisaabinaya waxyaabo badan ay ku kala duwan tababara Saciid Muuse oo aan la yeeshay waraysi kooban waxa uu faahfaahin iga siiyay sababta amba farqiga u dhaxeeya garoonka macmalka iyo garoonkii hore ee waqtiyada hore lagu ciyaari jiray magacaygu waa Saciid Muuse haddii su'aashaada weydiisay farqiga u dhaxeeya garoonkii hore iyo garoonkan ka wanaagsan kulay waxa weeyaan qof walba dhinac buu ka eegaya marka haddii aan anigu eego garoonkii hore kulay wuxuu ahaa garoon ku soo caanamaalnay muddo lagu ciyaariyay chance farbadan dad badan ku soo baxeen imika casri baa la joogay wixii isbedeshay marka kii hore kan farqiga ugu dhaxeeyo waxa ugu muhiimsan kow kii hore lacag ma ahayn kan waa lacag laba kii hore waxa weeyaan haddaad ku ciyaarto si walba ugu ciyaarto jirkaaga meel aad dhaawac iyo dhib ka dareemaysa muu jirin haddii sidaa noqoto haddii jilba noqotoba kana dhaawaciisa batay dad ku jaba jilba xanuun dadkii cagaha ka wada cabanaya kulay waxa weeyaan kuwaas waxa ka mid ah farqiga u dhaxeeya haddii la eego waxa weeyaan garoonkan dadka lagu talagalay kulay garoonkan uu kooban yahay oo sida stadiumka kaliya mooyaane garoonkan aad buu kooban yahay marka haddii aynu eegno garoomada yar imka lagu ciyaarayo kulay waxa weeyaan faa'iido badan way keeneen waxay keeneen in dadku ay bahasho ku soo noqdaan oo dadku ay aad u ciyaaraan waxa kale ay keeneen in waxa weeyaan garoonkii uu noqdo garoon la daawado oo dadkii kubadda waxa weeyaan markii garoomadii tartanadii la qaban waayay meel lagu ciyaaro oo la daawado ay noqday kuwan waxyaalaha kale faa'iido ay waxa kamid ah garoonka kulli xagga nadaafadana qofku markuu ku soo ciyaaro adigoo nadiif ka baxsan boorkii iyo wixii faraha badnaa waad ka karaysanaysaa kulli waxa weeyaan farqiga u dhaxeeya kamid yihiin kii hore laakiin waxa weeyaan wuxuu ahaa garoon busa haddaad dhacdo xabad noqonahayn wax lacag laga ma charge gareynahayn training marka ku qaadanayso waxa laga yaabaa qofku inuu 10 jeer dhacay waxba noqonahayn kana haddii wax weeyaan hal mar dhaco waxa laga yaabaa gidaaradaas inuu ku dhaco inuu halkan waxa laga yaabaa ay tahay sabab baad doontaa ay tahay goolkii waxa weeyaan ayaa kooban marka waxyaalo fara badan oo farqi way jiraan waqtiyadii hore dhalinyarada ayaa ku ciyaari jirtay garoomada bacaadka balse hadda waxa lagu ciyaaraa garoomo ka samaysan caws macmal ah Cabdiraxmaan Erdogan telefishinka Nabad TV Hargeysa